weerarka lagu qaaday xildhibaanada ka tirsan Koongareeska Mareykanka ee Ilhaan Cumar intii ay ku sugnayd kulan dadweyne oo ka dhacay waqooyiga magaalada Minneapolis fiidnimadii Talaadadii shalay ee xilliga Mareykanka ayaa abuuray walaac ku saabsan xurriyadda ra'yiga, madax-bannaanida hadalka iyo dhammaan mabaadi'da ay sheegtaan Mareykanka iyo xulafadiisa. nin watay silingo ama aagad ay ku jirtay dareere aan la aqoonsan ayaa ku rusheeyay Ilhaan iyadoo jeedinaysay khudbad ay kula hadlaysay taageerayaasheeda. inkasta oo falkaas argagax iyo jahawareer abuuray haddana Ilhaan Cumar waxba kuma aysan noqon waxayna sii wadatay hadalkeeda. sida ay sheegeen booliiska Minneapolis iyo goobjoogayaasha ninka weerarka geystay oo magaciisa lagu sheegay Anthony James Kazmierzak dadiisuna tahay 50 sano jir ayaa si lama filaan ah ugu cararay masraxa isaga oo ku buufiyay dareere midab madow leh xildhibaanada ka hor inta aysan ilaalada ammaanka dhulka dhigin booliiskuna xabsiga u taxaabin. inkasta oo hoolka ay ka muuqatay cabsi iyo sugnaan la'aan haddana xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa muujisay adkaysi iyadoo oo sheegtay inay sii wadayso hadalkeeda kuna adkaysatay in cabsigelintan ay joojin doonin shaqadeeda matalaadda shacabka. hadalkeedaas waxa uu helay sacab iyo taageero ballaaran oo ka timid dadkii goobta joogay. weerarka ayaa dhacay waxyar un kadib markii Ilhaan Cumar ay si kulul u dhalisay laanta socdaalka ee ICE iyadoo oo ku baaqday in gabi ahaanba la baabi'iyo isla markaana dalbatay in xogayaha amniga gudaha Mareykanka Kristi Noem ay xilka ka degto ama maamuska xayuubin lagu sameeyo. sida ay warbaahinta caalamiga ah tabisay ninka weerarka geystay ayaa ku qayliyay hadallo lid ku ah xildhibaanada ka hor inta uusan falka fulin. xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa mar kale la hadashay dadkii kulanka joogay kadib markii xaaladdu deganaatay iyadoo oo sheegtay in falalka noocan ah aysan wiiqi karin go'aanka iyo adkaysiga dadka Minnesota. waxay sidoo kale fariin ku daabacday baraha bulshada iyada oo xaqiijisay in aysan wax dhaawac ah soo gaarin kana mahad celisay taageerada dadweynaha iyo samajeclayaasheeda. kulanka dadweyne ee la weeraray waxa ka soo qayb galay ku dhawaad 100 qof kuwaas oo ka doodaya arrimo la xiriira kororka howlgallada socdaalka federaalka ee Minneapolis. magaalada ayaana waayadan la tacaalaysay xiisada la xiriira arrimaha socdaalka iyo amniga taas oo sare u qaaday walaaca bulshada. weerarka lagu qaaday xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa si weyn looga cambaariyay gudaha Mareykanka iyo dibadda oo ay dadka Soomaaliyeed ku jiraan. duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa sheegay in rabshad iyo handadaad aysan boos ku lahayn magaaladiisa isla markaana khilaafaadka siyaasadeed lagu xallin karo nabad oo kaliya. sidoo kale siyaasiyiinka kala tirsan axsaabta kala duwan ayaa si wadajir u dhaleeceeyay weerarka iyaga oo muujiyay in khilaafka fekerka ah uusan marnaba sabab u noqon karin weerar jireed. booliiska Mareykanka ayaa sheegay in eedeysanaha lagu soo ogay dacwad ah weerar heerka 3aad ah isla markaana uu ku jiro xabsiga Hennepin County iyaga oo carabka ku adkeeyay in falalkan lagula dagaalami doono sifo sharci ah. dhacdadan ayaa imanaysa xilli ay sii kordhayaan handadaadaha loo geysanayo xildhibaanada ka tirsan Koongareeska Mareykanka. sida ay tilmaameen laamaha ammaanka sanadkii la soo dhaafay waxaa si weyn u kordhay tirada hanjabaadaha iyo beegsiga cabsigelinta ah ee lagu hayo mas'uuliyiinta dawladda ee ka aragtida duwan maamulka talada haya ee Trump. xildhibaan Ilhaan Cumar oo ah Soomaali Mareykan laga soo doorto gobolka Minnesota kana tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo doorashadeedii 2018 waxa ay noqotay cod muuqda oo u ololeeya cadaaladda bulshada, dib u habeynta socdaalka, daryeelka caafimaad loo siman yahay iyo siyaasado horumarineed. inkasta oo ay wajahday dhaleecayn iyo weeraro joogto ah haddana waxa ay mar kale muujisay adkaysi iyo go'aan adag. iyada oo baritaano lagu hayo dareerihii la isticmaalay iyo sababaha ka dambeeya weerarka haddana fariinta ka soo baxday Minneapolis ayaa ah mid cad. isku day kasta ee cabsigelin iyo rabshad siyaasadeed ee la doonayo in lagu aamusiyo codka muuqda ma aha mid guulaysanaya. waxaana xildhibaan Ilhaan Cumar ay sheegtay inay ka soo badbaaday dagaallo sidaas awgeed aysan joojin karin cabsigelinta. baaritaanada booliiska wadaan iyo dhacdadan wararka ka soo kordhaba halkan ayaad kala soconaysaane ha moogaanina inaad ku xirnaataan Tifaftir Media. waa Abubakar Maxamed oo idin leh waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin nabad iyo warsan.